waxaanu joognaa maanta degmada Lughaya magaalada madaxdeedii Lughaya run ahaantii oo ka mid ah dhulka ay abaaruhu sida baanu saameeyeen maxay haydaanay bulshada magaalada oo aan wixii aan u soo lagu walaalooda soo tabaruceen aanu maanta halkan ugu qaybinay dhammaantiinba waxaan wareejinaynaa haddii aan nahay guddigii taakulaynta ee soo ururinta maxay haydaanay gobollada Awdal iyo Selel raashin ka kooban 300 oo qoys oo aan halkaa dhigno dadkiina kuwa dul fadhiya yihiin waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay waxa kale oo u mahadnaqaynaa injooyadii deeqda bixiyay shirkadihii deeqda bixiyay oo tiradooda koobi karayn sida Dahabshiil oo kale sida Shaabo oo kale sida Power Boorama oo kale qolada laydhka sida Amir Training Company oo kale sida ganacsatada kale ee waaweyn oo iyaguna ay ka mid yihiin Muumin Jaamac oo kale Cabdi Xasan oo kale Xaaji Ciise oo kale Haaruun Dheero oo kale yaani ma koobi karayo run ahaantii intii kale deeqda gacan ka geysatay dad kale oo iyaguna dibadda ka soo diray baa jira deeq oo iyaguna ay ka yimid yihiin jaaliyadda Jarmalka ummad badan oo aanan halkan ku soo koobi karayn dhammaantoodba waan u mahadnaqaynaa tabaruc ay walaalahooda u bixiyeen waxaan u sheegaynaa bulshada iyo gudoomiyaha degmadaba inay dadka walaalahoodii dadka ugu soo tabaruceen oo kala qayb galaan yaani dhibaatada ay abaaruhu keensadeen waxa magaca shirkadda Dahabshiil waxa jirta maxaan ku raacay shirkadda Dahabshiil ugu deeqday abaaraha gobolada Awdal iyo Selel lacag dan $10,000 lacagtii oo runtii raashin maxaan ay soo galiyeen guddiga ku wareejinay ayaan naguna martay sharaf ahaan maxaan soo raacay saadarkaysan dadkii maxaan ku xadeeqdi waa la gaarsiiyay salaadiintii maxaan ku raacay caqaashin gudoomiyaha degmada maxaan ku raacay qaybihii maxaan ku bulshada oo dhan runtii waa loo dhanyahay si fiican oo sharaf lana maxaan ku raacay runtii maxaan ku socotaa waa baaqi maxaan ku runtii gudoomiyaha maxaan ku degmada Lughaya uu soo gaarsiiyay dadka abaaraysan annaguna waxaanu ardaynahay shirkadda Dahabshiil mar walba aanu u taaganahay inaanu maxaan ku raxaweeye mar walba aanu ka war hayno bulshada meelaha dhibaatada ay ka jirto Ilaahay baa mahad marka hore maanta in kale goobtan joogno oo degmadii Lughaya oo runtii ku dhacday abaara farjira iyada iyo qayb Selel kamid ah waxaan marka hore Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay naga aqbalo daan degdega oo gacantii Ilaahaya inuu Ilaahay ummadda roob maasheeya oo shar lahayn Ilaahay keenaan marka hore Ilaahay ka baryaynaa ergana aanu ugu gannahay marka labaad waxaan halkan mahadnaq badan uga soo jeedinayaa deeq bixiyayaasha ama gargaarayaasha walaaladood maanta ku gargaaray raashinadan goobaha badan maanta loo qaybinayo iyo kii dambeeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida la sheegay Dahabshiil Telesom maqaraysaa qaryada Amuud Foundation jaamacadda Amuud Shaaba laba koobi karo gruubka xaygaasay bulshada waxa kale aad ugu mahadnaqaynaa ganacsatadii aanu yeedhnay labada goosho ka qabanay naga aqbashay in ay u dhaganuglaadaan qayladhaanta dadkooga aan ugu qaylo tagnay dhammaantood ku 10,000 bixiyay iyo ku bixiyay iyo ku hooseysa bixiyayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in miisaanka xasanaadka ay nagu daro halka ka soo saarteen haddii la yiraahdo ilaahay uu bedel ka ballaaray ilaahay niyad geliyo waxa kale oo baaq u direena dhammaan cidii maanta la maqlaysa ama na arkaysa jaaliyadaha ama qurba joogta ku abtirsanaysa goboladan ama Soomaalilandba waxaan ugu baaqaynaa dadkiinni waa ka adkaysa dadkii waa ka nala jooga dalkay ku nooleena waa ka sigadu ka dhacayso waxa weeye cidda u maqani waa iniga weeye waxaan aad iyo aad inigu boorinaynaa inigoo gacmaha is haysta meesha doontaanba joogo inaad umadiina gurmad degdega aad u soo dirtaan
anad ku soo hagaajisaan guddidaan magacowna guddida abaaraha ee gobollada Awdal iyo Sele waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan waxaan niga codsanaynaa in si degan nugayna oo taxaddi ku jiro dadka loogu soo gurmado waxa weeye si baahsan magarasa ayaa abaartu ugu dhacday taana intaasaan ka tegaya waxaan ku soo gabagabaynaya hadalkaya waxa weeye wadajir wax gacmo laba gacmo wada qabtaan wadajir baan nigu ognahay inuu ilaahay abaarta inaga soo jabiyaan ka baryaynaa waxa weeyaan baaqayo hadda intaas aan iga gadhan yahay wax biibtay ilaahay ka abaali intii ka arrimaysayna Allah ka abaali aamin inta imiga maqlaysana ilaahay ku hanuuniyo aamin halka aan joogno hadda hanfidaan joogi kari laani hanfi iyo gaajo iyo dhibaato inta isugu beertay ma noola iyo harraad ilaahay ha u gargaaro ilaahay isaga gacan weyn aamin ilaahay isaga gacan weyn dadka ha u gargaaro intii hadalka iyaga maqlaysaa dadka gargaar ha u soo fidiso ciday doonto baatay intii carabka leeyahay halkan wixii aan ku dhiibnay waxa nala jooga gudoomiyihii degmada waan kugu wareejinay inkastoo dadku qaadanaya cid aan wax ku wareejinay adiga weeye naga gudoon ilaahay baa gacan aamin aamin ilaahay hanaf aamin ilaahay hanaf aamin ilaahu raxmad degdeg aan ku barin ilaahu raxmad degdeg aan ku barin faatix ka sheegnay aqbalkii ay naga aqbaleen hadday sulaadiin tahay hadday maaragtay tahay haddii ay tahay maaragtay shirkado intaba aanu kaliya kan odhan maayo waxaan maanta filayaa inay tahay guushii ugu weyneyd ee ay wax halka ay joogaan iyo hanfiga ku dhacay iyo dhibaatada haysata ayaa wax walba maaragtay u maraga wada aragtaan kuleeyahay taagan yihiin waxa weeye nin dhibtii ku haysatay oo arkayumaa wax kaa sheegi kara waxa weeye salaadiinta shirkadaha ay dahabshiil ugu horrayso waanu mahadnaqayaa iyo inta kaleba Soomaaliland dhammaanteen hore odayaashaydii baa u mahadnaqay salaadiintaydii baa u mahadnaqay aniguna iyagaan u mahadnaq celinayaa waxaan filayaa inay maanta tahay aragtidii u horraysa ee ay noogu yimaadeen haddii ayna arkeen alxamdulilah waxa weeye raashin ilaahay baa wax gaadhsiin kara raashin qiimo ma leh warninku muxuu ku nool yahay maanta hadday ku leeyihiin wax iga dhimanay ma jirto alxamdulilah ku jira waxaa kale oo ay raacsadeen oo ay ku ammaan leeyihiin amba ay ammaan ku mudan yihiin amba ay sharaf iyo karaamo ku darsadeen waxa ay ku qaybiyeen gacantooda oo cadceedda ayay isku taageen waxa weeyaan waanu mahadnaqayaa ilaahay baa mahadlay waanu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay inta kalena arkab inta kalena ha ku dayato kuwa ha ku daydana wixii Soomaaliland kala saari maayo waxaan xukuumadda leh odayaashada waxay dhaliinayso ay wax yar ku dhaliinayso ay gaaminayso tahay xukuumaddana waxaan leenahay anoo horreyso iyadoo ha u horreyso dadkeeda iyada gurmadka ugu horreyso meeshay doontaba ha joogto waxa weeye anu mahad badan baanu celinayaa oo